مدوي تولي وحياليه ما صار يعني كهلي وحيدون سيدلو لعبه successful business وايو موضوع أنت وجبنا trend كمان تو dadkii waxay muddo somehow majority of them wada aragteen shaqaalanimadii way naceen qof kasta wuxuu doonaya wuxuu isagu jecel yahay oo uu yacnihii magaranaysa doonayo oo uu isagu iska leeyahay inuu sameeyo majority of them markaad si u eegaysid marka waxaa aada muhiim u ah inta aanad ka bixin dadka qaarkood baa olol si guud koley waan uga hadlay madaweyt wale 1 hour and half baan ku jiray ganacsi wax kugu soo koobiyan qaababka loo bilaabo kow waa inaad adigu isku diyaarisaa psychologically isku diyaarin yani maskax ahaan waayo marka qaarkood dadku waxay bilaabaan iyagoo nafsiyan diyaar u ahayn laakiin maskax ahaan aan diyaar u ahayn markaas waa qaybta koowaad qaybta talabaad ku sheegay waxay tahay ha ku bilaabin qiira ha ku bilaabin weligaa allah ha bilaabin yani ganacsi lacag baa laga sameeyaa iska furo hebel iyo heblaay waa ku furtay lacag ka sameynaya iska furo meel heblaay waa lagu buusay ganacsiga noocaas ah socda iska furo maaha xog ku dhis kow adiga ka go'aanto waxaad ka shaqeynaysaa waayo adiga garanaya qofka laguma khasbi karo yani waxaan kamana shaqeyn karo waxaan happy ku ahayn marka waxaad adigu happy ku tahay oo ku faraxsan tahay oo ku qanacsan tahay oo jeceshahay oo xirfadii leedahay wax weeyaan gal marketka noocaas yani hinka inta wax ku siin doontaa in waxa ugu wanaagsan qofku lacag sameyn karaya baa la dhadaa waa wuxuu isagu jecel yahay marka shayga haddaad jeclayn somehow si unbaad uga caajisi doontaa xataa marka qaarkood lacag sameynaya laga yaabo inuu passionkeedu uu kaabo oo marka qaarkood caqabadeeda aad adkeysan kari weyda marka taasina yani waa taas dhalinyarada inta badan waxay ku bilaabaan ganacsiga majority of them arkay dadyo badan yani waxa weyn waqtigan kusoo jiray mentorship iyo talo bixinta iyo dadyo kala duwan mostly aan siiyo aan mentorship ka siiyo aan ku arkay qaar badan oo kamid yani sababtii marka hore bilaabay haydun hebel baa sameeyay ganacsi sameeyay iyo ganacsi lacag baa laga sameeyaa hadii ganacsi waa sida badoo kale haddaad dabaal garanaynin waa ku dhamaatay this one u dhahdo qofku waa inuu haystaa qof business mentor haystaa qiirana aanu ku bilaabin waayo shayga qiirada lagu bilaabo maxaa la dhahay geedka orod lagu karo rafta lagaga soo daleeyaa taasi Soomaalida kuma maaha marka talada si kala taladan ruumo lagu rafaadaa marka muhiimadu maxay tahay adigoo xog sita adigoo oo idea haya adigoo idea xog ka haya xog dhabana ka haya oo bilaabi kartaa yani ganacsi qodobka kale ee muhiimka ah waxa weeyaan isagoo marka xogta laga yimaado waa in marka xogtii soo hesho business plan waa inaad qortaa qorshe ganacsiyeed halkan waa halka la isku dhaafay berigii hore ganacsiga cidii guuleysan jirtay waa cidda u sababtay u dhabar adeegta laakiin maanta maaha ganacsigu berigii hore waqti badan buu qaadan jiray inuu qofku guuleysto laakiin sidaas teknolojiyadii baa waxaa soo dhan waa been maxaa laakiin guuleysanaya waa ganacsiga aqoon ku dhisan aqoonta waa maxay huwa fahamka waxa weeye waxaan uga fahamka macaamiisha psychologically qaabka u fikiraan iyo baahiyaha dhabta ay haystaan yani pain points-kooda marka inaad taa iyadana inaad samaysato roadmap oo noqonaya strategy oo noqonaya si guud noqonaya حالا business plan aad bay muhiim ganacsiyada 95% of them malaha dadkeena Soomaalidu ma wada baran bayna wax qoraan wana yani inta dhibaatada keenaysa min ogaada shayga qorto ee qoraal ka dhigtay ku qorto yani paper aad ku qorto waraaq ku qorto iyo shayga maskaxda ku haysta aad bay kala duwan shayga qorto waa shay si fudud u gaari kartid 85% bal qoranayaa dad yoga ahdaftooda gaaray waa kuwa ahdaftooda ay qornaayeen sababtu maxay tahay mar walba maskaxda aragto waxay isku dayaysaa qaabkii u xaqiijinayd waxaanay arkaysaa inay sugayso mas'uuliyad aad u weyn wana halka ka imanayo law of attraction waayo wax soo jiidan waxa weeyaan waa qodobka la tacalluqa Umar way qodobkan isagu wuxuu inta badan la tacalluqa oo xiriir leeyahay haddaad maskaxdaada u furin wax barato kama hadlayno jaamacadaha iskuulaadkii laakiin waana aqoon barata mar walba inaad xog cusub barataa maalin kasta haddaad hel erey faa'iido wax badan bay kuu samayn doontaa dadweyne qaarkood maxay sameeyaan wala dhalinyarada majority of them like waxay ku xirnaadaan page-ka aan wanaagsaneyn page-ka mala yani sheega page-ka xaraabaha page-ka xumaanta yani faafiya waxaan wanaagsaneyn dadna qofku wuxuu consume gareynayaa oo helayaa information yani aan wanaagsaneyn maskaxdiisa iyo caafimaadkiisa تاني maxay keenaysaa productivity level-kiisa waa hoos u dhacaya yani heerkiisa wax soo saarba hoos u dhacaya way waxaad ogaataa psychologiyadaadu waxay jaan goynaysaa yani nidaamkaad u fikirayso iyo nidaamkaad wax u qabanayso iyo waxa weeyaan sidaad wax u arkaysaa waxay jaan goynaysaa oo qayb weyn ka qaadanaya yani ka qaadanaya waxaan waa psychologiyadaada wasad wax u arkayso wasad wax u dareemayso wasad waxa weeyaan wax ma garanaysaa aad dhinacaad ka taagan tahay yani shaygaas marka ku xidhnow page-ka wax ku faa'iideyn karaya xogta ku siin karaya
hal xarafna aad ka faa'iiday kana dheerow page kastoo maala yani waqtigaaga kaaga qaadanay qaaban mala yani qaab aan wanaagsaneyn ad wax isweydiisaa intan aad geysanayso amba ciidan aad daawanayso amba ciidan aad ku xidhan tahay waxaanay ku siinaysaa muxuu yahay yani xogtan ku siinaysaa ma xogaad ku kobcaysaa mise wax xogaan isku kobcayn okay dad ku kobcayso that's fine oo adduunka iyo khibradada yani ku anfacayso haddii aanad ku kobcaynin adigaa product liibinaya adigaa product liibinaya yani adiga laga faa'iideysanaya okay marka taasina waa mid aad muhiim ah inaad yani isbedesho shakhsiyadaada bedesho oo yani wanaagsanaato bedelka markaan ka hadlayo positively inaad bedesho shay kale aad muhiimka waxa weeyaan inaad mentor hire garaysto aad hesho qof mentor oo ku mentor gareeya waayo mentorku waxa wax badan ka bedeli karaya yani dagaalkaad gelayso waayo ganacsigu waa dagaal oo kale dagaal indhii ku daada weeyaan cid baad tartamaysan competitors baad leedihiin suuq baad yani wax weeyaan gelaysaa hawl badan like marka strategic thinker haddaad noqon kari weydo qof fikra qaab strategic ah caqabad weyn baa kugu imanaysa marka waa inaad open wax inaad wax barato marka muxuu faa'iido leeyahay mentorku dhowr faa'iido buu leeyahay kow waqtigii aad wax badan ku baran lahayd buu kusoo koobaya laba cid kasta lama aha inaad la tashto cid kasta kuma fahmi karayso cid kasta kuma daaqshan qaad karayso waa deegaan aad wax ku falanqayn karto waa cid aad wax u sheegi karto wax la falanqayn karto saddex waa cid yani wax weeyaan confidentiality yani wax weeyaan waxyaalaha confidentialka ilaalinaysa u baahan inaan la sheegin wax laga yaabaa imka qofka saaxiibtiin hadda wax u sheegtay inuu magaalada dhan wada siraad lahayd tusaale oo kale isagoo moodin inay sirtay laakiin marka shaqo tahay qof professional marka nidaamka wada dhaqmaysa waa nidaam professional that's it marka waa meel ku aamini karto afkaartaada iyo waxyaalaha doonaysa inaad wadaato kana heli karto wax weeyaan ku noqon kara backup wanaagsan way inta marka laga yimaado maxaa kale loo baahan yahay in aad samaysato inaad gasho niche market iyo الله طيبنا niche customer niche market كم حين هو سوق جار وحجار إنه بقبضه بس كانوا يتقدر like بقولال وحلونا كبا كان يسوق دركين شيء كبير وكان يا ده حلونا يا صوما كان وكان يا ده نركي تمر كان ده وكان يا ده نركي عرب وحول بس كهربية كان عسيد أنت بدين كل يستوى وكان عسيد النيتش ماركت كان قف الحلقة بينه كل هذا إدوا بينا أنا دي كان دنيا حدي وقاعدة بن ماركتينج كان haddii cid walba aad aragto in aad doonto inaad wax ka iibiso ay noqoto yani macaamiishaada waxaad ku dhamaysan doontaa macaamiil la'aan waanaad garan karaysaa qofku markuu karinka kaaga soo galaama markuu kula soo xidhiidhin inuu yahay qofkaad wax ka iibinaysa inaanu ahayn simple halkan maxaa imanaya waa inaad niche market gasho sidoo kalena aad customer segmentation samayso ood garanayso ciddan aad doonaysa inaad wax ka iibisa waayo levelkeeda aqooneed levelkeeda yani dhaqaale waxay occupation iyo shaqooyinka qabtaan wali waxaad ogaan karaysaa markaad pricing ka samayn karayso yani waxay wax ka iibsanayaan lacagtay bixin karayaan bad si fiican u ogaan kartaa marka taasina iyadana muhiim marka tani waxay soo gelaysaa waa target customerka ay soo gelaysaa market segmentation yani customer segmentation si guudna waxay soo gelayaan waa marketing strategy marka marketka gelaysaa waad si fiican u garanaysaa oo hada niche market oo cid kasta target ku noqonayo wax walba yani aan la diibinin sidoo kale waa in dadka aad si fiican u garanayso aad adeegaysaa noocay yihiin qaabka u fikiraan halka laga helo then maxaa fududaan doonta inaad fahamto pain point waa maxay wax weeyaan waa baahida dhabta ay leeyihiin dadkan yani xanuunkii dareemaya imka qof waxa laga yaabaa xanuun buu la tacaalaya dadkana hadduu helo kaniin ka xalinaya xanuunkaas daatid uu ka qasbay yani inuu iibsado okay qofka doonaya inuu waxa weeyaan uu sameeyo uu qaato yani telefoon khatara ama telefoon yani kamaradiisu wanaagsan tahay waa inuu wax duubu doonaya pain point ka haystaa muxuu yahay pain point ka haystaa waxa weeyaan fiidiyoyadu duuba waa bila quality deetana tani maxay keensanaysaa feedback negative isagii uu damqaya deetana markiiba ku khasbanaanaya inuu soo iibsado yani mobile inuu soo iibsado that's it marka customer pain point kaad fahmi kartaa oo waxaa kuu fududaanaysa ciddan aad u adeegaysa inaad baahideeda dhabtaa aad fahmi karto marka taasna iyadana waxay la tacalluqdaa taas marka ganacsiga haddii aan lagu salaynin cilmi oonad ahaanin qof strategiga oo qaab fikriya yani strategiga wax badan baa kaa qasmi doona dhalinyarada inta badan mentor gareeyo business mentorka waxay for the last 3 years kii aan kusoo jiray si gaar ah barnaamijkan aan waday business mentorshipka mostly waxyaalahan ku arkay waxay ahayd inaan market niche market aan gelin oo wax kaliya ku adeegay inaan customerkooda si dhaw garanaynin dadka waxay keenaysaa inaan garan karin badda si aad u gaari karto waxa laga yaabaa macaamiisha TikTok joogan adiguna inaad Facebook joogto laga yaabaa waxa laga yaabaa macaamiisha Facebook joogan adiguna inaad TikTok joogto laga yaabaa yani like waa inaad garan karaysaa intan aad ugu tala gashay shaygan halkee joogtaa halkee laga heli karaya sidoo u fikiraan social media adeegsaneen waa noocee purchasing power